kulanti wacan daawadayaal mar kale iyo janaalkeena xogta daasoon. Janaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii dhacdooyinka ka dhacaya dunida dacladeeda, xogaha daasoon ee ciidanka iyo midda sirdoon, sidoo kalena warbixinada la yaabka leh dhacdooyinka Soomaalida ugu waaweyn ayaad ku daawan doontaan. Fadlan haddii aad inagu cusub tahay subscribe inoo saar. Maanta waxaynu ka hadli doonaa Netanyahu fajaca iyo argagaxa ku dhacay kadib markii uu ku fariistay kursigii ra'iisul wasaaraha balse lagala kiciyay baaxadii ugu weyneed ee ninka loogu naceebka badan yahay xagga Yahuudda oo soo gaartay. Warbixin guud oo xiriirka Israa'iil iyo Carabta ah ma la filayaa heshiis isbeddello cusub ayaan ku eegeynaa. Fadlan haddii aad inagu cusub tahay subscribe inoo saar, kuna soo bir daawadayaasheena aynu xushmada iyo qadarinta u hayno. aynu ku bilaabnay caadooyinka qaar way adag tahay in qofku ka tago si sahlan, gaar ahaan markii aad 12 sano ahayd ra'iisul wasaarahan dhicin. goob kasta oo aad tagtidna aad ku fariisan jirtay goob la isku wada og yahay oo maamuus gaar ah leh. qofkan aan ka hadlayna waa ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaas oo markii uu tagay aqalka baarlamaanka dalkaas ee Knesset uu isagu islaamay ku fariistay kursigii ra'iisul wasaaraha uu ku fariisan jiray sida caadada ahayd. balse waxaa dhacday in la xasuusiyo inuusan ahayn ra'iisul wasaaraha dalkaas. xilkaas oo loo doortay Naftali Bennett oo helay codka aqlabiyadda baarlamaanka Israa'iil markii uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil inuu yahay Naftali Bennett. Netanyahu wuxuu gacan qaaday una hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub. Netanyahu markiiba kursiga uu ka kacay waxaana uu wareegay kursigii kale ee loogu talagalay, kaas oo ah kursiga hogaamiyaha mucaaradka oo meel astaysan ku yaal aqalka. Israa'iil ayaa la yeelatay ra'iisul wasaare cusub kadib markii xisbiyada mucaaradka ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu kaga adkaadeen inuu dowladda wadajirka uu hogaamiyo. Netanyahu ayaa xilkiisa waayay 12 sano kadib markii uu hayay awoodda Israa'iil. baarlamaanka Israa'iil ayaana cod ay ku taageerayeen siiyay dowlad isbahaysi cusub ah. ra'iisul wasaaraha cusub waxaa loo dhaariyay Naftali Bennett, xilkana waa loo dhaariyay. Naftali Bennett oo ah nin ka tirsan garabka midig islamarkaana nin ay wadaniyadu madax marta ayaa loo dhaariyay ra'iisul wasaaraha dalkaas. Naftali Bennett oo hadal u jeediyay golaha wasiirada waxa uu sheegay in shaqo culus ay hortaal islamarkaana ay tahay in Israa'iil horey u socoto. maalmo cusub ayaan bilaabaynaa, waa kuwa adeeg haddii aan idhaahdo kama aanu badbaadin. dowladda midnimo ayaa inaga dambaysa. hadda dhammaan shacabka Israa'iil waa ayna eegayaan. waa inaan fulinaa waxaynu ballan qaadnay. annagoo wada jirna ayaan tallaab qaadeynaa, annagoo kaashanayna islamarkaana qaadayna mas-uuliyadda inaan bogsiino wixii aan kala gaarnay. dalalka aan isu keenno oo aan dib u howlgelino kadib muddo dheer oo curyaamin isqabqabsi ku jira ayaan hore u socodsiinaynaa, ayuu yidhi. Netanyahu wuxuu dhankiisa qaadacay isbahaysiga cusub ay xisbiyada mucaaradka dhisteen sida ku cad heshiiska awood qaybsiga. Naftali Bennett oo ah nin diintii wadaniyadda Yahuudda ay ku weyn tahay ayaa muddo 2 sano xilka ra'iisul wasaaraha hayn doona, waxaana kadib kala wareegi doona hogaamiyaha xisbiga dhexe Yair Lapid. Bennett ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil ayaa xilka hayn doona ilaa bishii September 2023 sida uu dhigayo heshiiska isbahaysiga. Netanyahu ah siyaasi ruuxda ah ayaa hogaamin doona xisbigiisa garabka midig ee Liquid, wuxuuna noqonayaa hogaamiyaha mucaaradka. Benjamin Netanyahu ayaa xilka ra'iisul wasaaraha soo hayay 5 muddo xileed, waxaana markii ugu horeysay uu xilka qabtay 1996 ilaa 1999 halka laga soo bilaabo 2009 ilaa 2021 uu xilka hayay. bishii Abriil 2019 ayuu doorasho ku baaqay, balse uu ku guuldareystay inuu helo taageero ku filan oo uu ku dhiso dowlad cusub, waxaana taasi xiga 2 doorasho oo ka dambeysay. haddaba waxaa la isweydiinayaa xiriirka cusub ee Israa'iil iyo Carabta miyaa la filayaa isbeddello? haddii dhammaadka xukunka 12 sano qaatay ee Benjamin Netanyahu gudaha Israa'iil ka dhaliyay dhulgariir siyaasadeed, saameyntiisuna waxay ku adag tahay xuduudaha Israa'iil. Ehlam Faqr oo ah falanqeeyo sare oo ku sugan wadamada khaliijka kana tirsan kooxda caalamiga ee xasarada ayaa yidhi runtii tani lagama hadlayo ama lagama fikiri maayo. kuwa daneynaya arrimaha Falastiin waxay u arkaan dowlad kasta oo Israa'iil inay isku mid yihiin. waxaan dareemayaa in qabashada sii socon doonto iyadoo aan loo eegin cidda wejiga u ah. Netanyahu muddada dheereed uu ahaa siyaasi isbeddello waaweyn la yimid, wuxuu ka mid ahaa kana mid ah isbeddelladaas xiriirka Israa'iil iyo Carabta. geedi socodkii nabadeed ee Falastiiniyiinta ayaa fashilmay. Israa'iil ayaa kordhisay dagaalkii kula jirta Iiraan iyadoo si joogto ah u duqeynaysay baartilmaameedyo kala duwan sida dalalka xulafada la ee Iiraan iyo Suuriya. isagoo kaashanaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald J. Trump,
Israel waxay gaartay heshiisyo cusub oo ay ku dhisayso xiriiro diblomaasiyadeed oo 4 dal oo Carab ay la yeelatay. taasi waxay gacan ka geysatay baabi'inta arrin muddo dheer soo taagneed oo ahayd in afgaradka carabta ee ka dhanka ahaa la macaamilka dowladda Yahuudda. balse qaar ka mid ah dalalka carabta ayaa la filayaa in arrintaas oo ah xiriirka xun ee Israel iyo carabta uusan waxba hadda iska bedelin, balse kaliya Netanyahu laga bedelay hoggaanka Israel. Ra'iisul Wasaaraha cusub waxaa la sheegay inuu neceb yahay fikirka dowladda Falastiin sida Netanyahu. sidoo kalena ma jiraan wax calaamadaha oo muujinaya arrintaas inay ka wada hadleen dhinacyada heshiiska la galay Israel ee 4 dowladood ee Carbeed. waxaa heshiiska loogu yeeray Abraham ee Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayna daba socdeen heshiisyo la mid ah kuwaas oo ay la galeen Suudaan iyo Morocco. lama hubo hadda in heshiisyadaas ay meesha ka bixi doonaan in kale. Naftali Bennett oo hadal u jeediyay golihiisa wasiirada waxa uu ka hor sheegay in shaqooyin culus ay sugayaan. waxaan qaadaynaa tallaabo innagoo iskaashanayna isla markaana qaadayna mas'uuliyadda inaan bogsiino wixiina kala gaaray dalkana isugu keeno oo aan dib u howlgelino kuwa muddo dheer iscuryaamiya ayuu yidhi. heshiisyada Abraham ma aan heshiis u gaara Netanyahu ayuu yidhi Cabdulqaaliq Cabdulla oo ah aqoon-yahan cilmiga siyaasadda ka dhigay Imaaraadka. waa heshiis uu horkacayo Imaaraadka Carabta waxaana ka dheeraan doona Netanyahu ama ra'iisul wasaare kasta oo Israa'iil ah. Bennett waa qabiir ku takhasusay diimaha oo taageero qorshaha ballaarinta iyo deegaameynta, waxaana uu ka soo horjeedaa dowladda Falastiin, balse wuxuu halis ugu jiraa inuu waayo shaqadiisa haddii uu kala fogeeyo asxaabtiisa ka midka ah isbahaysiga dowladda cusub ayuu hadalkiisa kusii daray. taasi waxay micnaheedu yahay inuu sii socon doono habka Netanyahu ee maareynta khilaafaadka 10 sano soo jiray, iyadoo la isku dayi doono in lasoo afjaro kula faaqida daanta galbeed ee la haysto iyo duulaanka qasa ayaa laga yaabaa in miiska ay ka baxaan, balse sidoo kale tanaasul kasta oo weyn oo Falastiiniyiinta ah. dowlad kasta oo Israa'iil ah waxay ballaarisay deegaameynta daanta galbeed iyo bariga Qudus oo Israa'iil ku qabsatay dagaalkii 1967. Falastiiniyiintuna waxay doonayaan in dowladnimadooda mustaqbalka ay fariisin u noqoto bariga Qudus iyo daanta galbeed. dowladda cusub ee Israa'iil waxaa la filayaa inay ilaaliso mowqifka adag ee Netanyahu ka qaatay Iran, kana soo horjeedo dadaalka madaxweyne Joe Biden ee dib u soo noolaynta heshiisyada caalamiga ee nukliyeerka. balse saraakiisha sarsare ee Israa'iil ayaa marka hore wacad ku maray inay diidi doonaan heshiiska, ayagoo albaabadu u xiran yahay halka bannaanka ay ka keeni lahaayeen khilaafka sida Netanyahu sameeyay sanadihii Obama. dowladda ra'iisul wasaare Bennett waxay sidoo kale u badan tahay in Biden kala shaqayn doonto xoojinta xiriirka la leedahay dowladaha Carabta. Bennett ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil wuxuu xilka hayn doonaa muddo 2 sano ah. dhinaca kalena Benjamin Netanyahu ra'iisul wasaarihii xilka soo hayay muddo 12 sano ahayd ayaa sheegay in maadaama isaga iyo taageerayaashiisa ay kusii jeedaan inay mucaarad noqdaan ay isdhiibi doonaan ilaa ay ridaan dowladda uu ku tilmaamay inay halis tahay. haddaba su-aasha isweydiinta mudan waa Carabta miyay la heshiin doonaan ra'iisul wasaaraha cusub mise waxay la safan doonaan Falastiiniyiinta? aragtidaada waa inoo reebi kartaa daawadayaal. guud ahaanna maanta waa naga intaas sheekadii ku aadaneed Israa'iil, Netanyahu fajaca ku dhacay iyo sidoo kale wejiga cusub ee ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaas. haddii aad inagu cusub tahay waan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto. nabadgelyo.